شوية سيدا هور الله شيء guri sharci ah oo damaanyaal ah oo dekreeto madaxweyne ku soo baxay oo uu lahay Dr. Ahmed Macalin Xasan oo Kenyatta kuma dheeray oo mudacada qaranka saraakiisheeda uu sareeyo kamid ahay haddana geeriyooday Allah yarxamo oo agoontiisii deganeed oo gabadha ay dhashay Cadar Cabdi Fiidow Naxar ay deganeed oo lahayd oo dhaxaltooyada ahay ayaa la jabiyay kullay sidaan anagu qabno oo xaqiiqsanahay aan sharci lagu jabin meesha kullay la jabiyo dhulka la jabiyo oo carwada nolosadu presidenta dalka ka soo baxday laakiin maxaa dhacay guri aan bajuurayshoonahaas ku jirin xayndaabka aan kamid ahayn carwada oo banaanku yeelo oo dimanyaal ah ay fiid soohdeen asay nimankii dan leeyahay ay jibin ugu dareen maxaa leena marka gurigaas madaxda dawladda madaxweynuhu u sareeyay nimankaas jariimay galeen oo dhulka loo siiyay in subar u haysta nolosada waa qaldameen waxay fiid soohdeen ayadoon xabba ka jirin dekreetadii madaxweynuhu nolosada ku soo baxshay Xasan Sheekh dhulkaas jurisdiction kuma jiro waa dhul dimanyaala waa dhul la leeyahay waa hanti dadeed oo personal ah waxaan codsanaynaa marka madaxda dawladda oo madaxweynuhu ugu horeeyo dhulkaas in gacanta ilmaha lagu soo celiso oo waa la jabiyay loo dhis oo hanti lagu burburiyo dhexdeeda ku jirtay loo dhaqan celi loo awl celi dhulkoodina si ugu dhaqso badan looguna dhiso looguna baxo intaasaan soo jeedinaynaa anagoo odayaasha reer Abtiga nimankii kale oo kale waa niman garaa ninkaas ku dhashay ayaguna kullay saxaafad kale ka hadli doona laakiin anagu ilmaha gacanta aan ku haynay reer Abtina waa u nahay agoonta gurigaas agoonta Xasan Sheekh adoo hoostaada hada billahi salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhul damaanyaal ah oo nisar gaara shibilu oo leeyahay sida la carab dhabay oo dekreeto madaxweyne lagu siiyay oo dhisan oo haddaan rabbi laga waayeen qalabkiisu u dhan yahay ilmuhu degan yihiin waxa lagu qaaday isku guur wax la yiraahdo dhulkii nolol oostada loo soo siiyo shirka baashi la dhigi jiray carwadii lagu darsaday ilmihii waa lagu burburiyay ilmahaas waalidaan u nahay gabadha annaga naga dhalatay been ku xaajo ma hayno annagaa gacanta ku haynay marxuumkii dhalay waa dhintay ilmihii iyo gabartii oo ku jiro lagu dumiyay dawladdu waxay bixido waxaan hayn in lagu darsadaaho waqtiga maanta meel uma jiro waa la wada og yahay laakiin arrintaas waxaan rabnaa inay gacanta soo geliyaan oo wax ka ogaadaan oo wixii ka jira wax ka qabtaan waxaan ka rabnaa mas'uuliyiinta wadanka ugu sareyso oo madaxweynuhuna ugu koreeyo gobernatooraha gobolkuna ugu hooseeyo ilmahaas waxaan rabnaa in gacanta lagu dhaco loo soo celiyo hantidooda dhulkooda loo soo celiyo loo dhiso qar dulmiga looga dumiyay dulmigaas haddaan rabbi laga waayo wax raalli ku ma jiraan galaabtoodii waa lagu dhex jajabiyey arrintaasaan shirka jaraa'id u qabannay ilmihii yaryaraayoon waalidka u haynoon haynay oo gacan ku midi ku hayska aan hayna intaasu ku dhacday intaasaan cabasho ka nahay dawladdana waxaan ka codsanaynaa anuu hadda amaran awood ku siinaa amar ku siina maliin awooddaasi ayada waxaan ka codsanaynaa dadkaas wax ku darsiga wax ku badsanaa dhula la siin ugu badsanaa inay ka qabtaan gurigi ilmaha loo gagday haddaan rabbi laga waayn in loo dhiso dhulkooda loo soo celiyo agoontaas haddaan dardaryada lagu qabtay in wax laga qabtay intaasaan codsanaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku dhegan yahay carwada dhulka wuxuu u sii jeedaa dhanka xaafadda hodan degmada hodan carwada darisuu leeyahay derbi ahaanuu kaga dhegan yahay dhulkuna waa dhul si nolosto sharciga ku soo baxay dowladdii maxamed siyaad barre nolostadiina waa tanaa oo ilaahay duu ku rooyahay mid banaanka taal ma aha mid qarsan ma aha macnaha mid banaanka taal waa wax qarsan ma aha markaad dekreeto madaxweyne dalkan 22 sano soo maamulay sharci ma aha ninka dhihi karo waa arkaynaa ilaahay duu ku rooyahay laakiin dowladdu waxaan ka codsanaynaa si sharaf leh
oo milga ku dhisan tahay inay dib ugu noqdaan arrintaas u fiiriyaan nimankan qowleysatada la buubaya bahasha ilaahay hadduu ku roon yahay nimankan la buubaya katarabiilka guryaha islaamka iska jijibinaya madaxweynaha inuu ka fiirsaa rabnaa waxaan u maleynayaa inuu madaxweynaha xataa raalli ka ahayn uusan ogeyn dhici kartay u badan tahay saan ogahay markii anigu waan aqaana hal amar haddii la bixiyo 100 amaraa lagu dhex darsadaa marka waxaan ka codsanaynaa dowladdu ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu inay arrintaas si fiican u soo fiiriyaan ee agoontaas ee gurihii laga dudumiyey magdhow buuxana siiyaan alaabtoodii waxooda lagu kori jabshay marka saas nidaam ma aha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guri ay leeyihiin ilmaha agoomma ah aabbahoodna uu ka mid ahaa ciidamadii hore ee dowladdii kacaanka gurigaasoo ku soo baxay sharci cad lambarkiisu yahay 220 soo baxay 1987 kaasoo ah damaanyaale kuna soo baxay sharci madaxweyne dekreeto madaxweyne waxaan aad ugu xunnahay dowladda markay dhulka jibinayso inay raacdo naqshadda guriga sharciga oo dadku leeyahay oo sharciyeysan iyo guriga danta guuda in la kala saaro naqshadda lagu kala saaro naqshadana lagu shaqeeyo saasaa nidaamka ma dhicin guryihii lahaa sharciga lahaa iyo kuwii danta guud oo dowladda lahayd wixii oo dhanba dhinaca laga maray waxay galaafatay gurigan oo sharci la damaanyaala ah sharci ku soo baxay 1987 sharci madaxweyne ku soo baxay in la burburiyo ilmihii lahaa iyo hooyadii ee dhaxalku lahaa agoontaana ay taagan yihiin iyagoo dhex jooga lagu jijibiyo waa nasiib darro waxaan leenahay arrinkaas dib looga noqdo dowladda ha ka fiiriso inta ay qusayso gubernatoriyaha gobolka iyo maamulka dhammaan gobolka banaadir waxaan leenahay annagoo ah odayaashii ilmahaas ka soo jeeday dhalay waalidiintooda eelkoodii ah in gurigaasi dib loo fiiriyo waa sharci guri sharci waa damaanyaal ah dowladda bixisay sharci madaxweyne ku soo baxay in dib loo fiiriyo gurigoodii loo soo celiyo saasaan rajaynayaa haddana waxaan ku wareejinayaa afhayeenka beelweynta xawaadle cilmi takar bare sidaas darteed waxaan nahay cabashaan nahay waxaan ka cabanaynaa niman baryahan oo dhanba dad guryaha ka duduminaya ayaan ka dacwoonaynaa guri ku yaalla degmada hodan oo carwada agteeda ah gurigaas oo ku soo baxay sargaal sare oo ka tirsanaya ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed Ahmed Macalin Xasan oo ka dhintay xaaskiisii ilmihiisa ay joogaan Cadar Maxamed Fiilow ay hadda nooshay joogto dhulkaasaan cabasho ka nahay ha gaaro dacwadaanada iyo warkaanaga ha gaaro madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha dalka Xamza iyo duqa Muqdisho maxamed amiin warkaanaga ha gaaro dhulkaas yaa lagu gardaroonin dhulkaas yaa lagu kaatoomin waxa iska leh ilmahaas agoonta iyo hooyadood waxa iska leh Cadar Maxamed Fiidow ya Cadar Cabdi Fiidow yaa iska leh dhulkaas yaa lagu kaatoomin sidaasaan leeyahay anoo ku hadlayo odayaasha dhaqanka Soomaaliya anoo ku hadlayo dhulka yaa lagu kaatoomin ha laga fiirsado yaa lagu degdegin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh